waxa kale uu sifeeyay rasuulka sallallahu alayhi wasallam dhididkiisii inuu dhididka rasuulku sallallahu alayhi wasallam ahaa luulko kale xag araga udgoonkana wuu inoo iman doonaa xadiis baa inoogu iman doona inuu udgoonaa dhididka rasuulku alayhi salaatu wasalaam ka dadka aanu la mid ahayn wuxuu yidhi idaa masha takaffa'a haddii uu socdo rasuulku sallallahu alayhi wasallam horuu iilanay oo wuxuu ahaa sidii qof ka soo daadegaya meel tiira ama buur oo kale waqtigiiba qofka xataa u badbaadaya haddii uu hore u degdego xogaa uu yala socdo socodka uu yara kordhiyo aanu gaabinin aanu sida dabayshan u soconin oo dadka dhan ay la yaabo si dhexdhexaada socodkiisu waa inuu socdo si uu dantiisa u soo qabsado waxa la sheegay in Umar ibn Khattab oo arkay nin ayar soconaya oo raqabadiisa mala fooriyay dabeetana wuxuu ku yiri ninkaagan khushuucsan ayar socdo khushuucdu kuma jirto fawararka qalbiga degtaabo ku yiri caadi u socod waxa kale oo la wariyaa Aisha radhiyallahu anha inay tiri Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu wuxuu ahaa ka dadka ugu saxsan haddii uu socdo uu degdegi jiray bay tiri haddii wax garaacana uu damqi jiray oo qofkii diinta khalad ka gala waa dhagadayn jiray waxa dhacday inuu Umar maqlay nin sabiiq la yiraahdo oo dadka weydiiya mutashaabiha quraanka balaayadan fasir dadku saa ku itixaami jiray dabeetana Umar oo maqlay hadalkiisa oo rabay ninka maalin la kulmo ayaa la kulmay dabeetana wuxuu ku yiri Umar oo madaariyaati darwa waxaad sheegtaa wadaariyaati darwa macnaheeda Umar wuxuu ku yiri magaca wuxuu ku yiri Abdullah Sabiq adonkii Ilaahay Sabiq loo dhan jiray Umar wuxuu yiri waana Abdullah Umar ana adonkii Ilaahay Umar baanay ciidankii buu ku yiri soo kaxeeya oo ninka diiday waa loo soo kaxeeyay wuxuu soo goostay Umar laama waaweyn oo timirtuna waa dhirta aan feedmin laan buu soo qaado uu ku jijibiyay ninkii uu la dhacay uu ku dakhdakray dhiigii ka soo dhacay madaxiisu xaribiisu yaacay waa xidhay haddana uu soo daayay uu garaacay haddana uu xidhay haddana uu soo daayay uu garaacay markuu dhowr goor garaacay ay markii dambe ku amiirkii muuminiinta hadaa doonayay dishacaadi dil nafta ay ku silcinay hadaa rabtay in caafimaadana wallahi naftaydu waxaan ka heliyay waan ka caafimaado waan ka ladnaado iska tag buu ku magaaladiisii ku noqday magaalada Umar joogay mehan magaalo kale ahayd amiirkii magaalada joogay wuxuu u qoray warqad ah in dadku ka hijroodaan oo aanay salaamin oo aanay waxba ka iibin oo aanay la hadalo ay ka dheeradaan ninka 12 bilood baa ninkii laga dheeraaday oo aan la hadli jirin oo hadduu soo galo xalqad cilmiya oo darsi lagu dhigayo waa looga dareeri jiray hadduu maqaaxi lagu shahaynay soo galo waa laga dareeri jiray noloshiiba ciidi ku noqotay dadku haday ku hadli waayeen waa subhanallaah aakhirkii ninkii amiirka Umar ibn Khattab warqad qoray wuxuu ninkii waa toobad keenay cunaqabataynta laga qaado cunaqabatayntii baa laga qaaday sidii buu ku toobad keenay sabiiq baa la oran jiray marka Aisha waxay tiraahdo wax garaacana waa damqi jiray waxaan u jiray Umar ibn Khattab radiyallahu anhu hadduu socdana waa dheerin jiray marka khushuucdu kuma jirto inaad aayar socotay inaad gaabisee khushuucdu qalbiga degtaa waxa kale xadiidku inoo sheegay rasuulka sallallahu alayhi wasallam gacantiisu inay jilicsanayd axaadiista qaarkood waxay sheegayaan rasuulka sallallahu alayhi wasallam baabacadii saacadi inay adkayd oo aanay jilicsanayn xadiidkana wuxuu inoo sheegay inuu dabacsanaa rasuulku alayhi salaatu wasalaam waxa la isku waafajinayaa labada axaadiis kuwa ku soo arooray in adkayd iyo kuwa ku soo arooray in jilicsanayd rasuulku sallallahu alayhi wasallam marka hore uu adkaa oo gacantiisu may jilicsanayn marka loo eegayo xagga inay weyn tahay sida xadiis inoo sifaysay inaanay dabacsanayn oo aanay jilicsanayn oo aanay metelahayn gacan dabacsan oo jilicsan marka la eegayo naxariista ku jirta gacanta rasuulka alayhi salaatu wasalaam iyo markuu cid salaamiyo qofku sidoo dareemayna rasuulku kuma geejin jirin si dabacsan oo naxariis uu salaami jiray waliba riwaayadka qaar waxay sifeeyeen rasuulku inaanu qof gacantiisa ka dhufan jirin ilaa qofkaas sii daayo hadduu qof salaamo rasuulku muu sii deyn jirin ilaa qofkaas isagu sii daayo akhlaaqdiisa wanaagsan rasuulka alayhi salaatu wasalaam sida dadka qaar ay sameeyaan ma aha markaad salaanto marka way kala boodiyaan sidii aad jeerin fara ku siitay rasuulku alayhi salaatu wasalaam gacantiisa muu sii jirin ilaa qofka kale ka siibo oo kala baxo waxa kale oo sheegay inaanu taabanin xariir iyo diibaad toona rasuulka gacantiisa ka jeceshay alayhi salaatu wasalaam aanu urin miskigu waa cadarada ugu udgoon ambarkuna sidoo kale uduga rasuulka wax ka udgoon aanu urin Anas ayuu noo sheegay aanu
وروى الدارمي دارمي وحور يبود عن ابن عباس عبد الله بن عباس كوري قال وحور عبد الله بن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوحها أفلج الثنيتين لبدا فولمدي كلا يردب سيهين إذا تكلم هدوه هدله روي النور نور بالغ أركي يخرج من ثناياه كصباحيا الكيس رسولك صلى الله عليه وسلم الكين وين قرنا وفولل يدولهن هره يمعيو marka ثنيتين كوا فولش فنحبوا لهم بحديث سفيان رسولك عليه الصلاه والسلام انه فرح لها حديث الدارمي ووري وحديث ضعيفه صحيح معها halka وصل لمبر 2 لمبر 2 وحد اخرجه الدارمي ووري برقم 59 وضعفه الألباني الشيخ الألباني وحو كضعيفيه في ضعيفتي سلسلة الأحاديث ضعيفة كضعيفيه رقم كافر لواتن كتابك الشمائل المحمدية مركان ايغا الشيخ الألباني وحو يدي ضعيف أنا كضعيفيه بوري أفر كن لو بقول يلا باتن كضعيفيه بوري halkan wuxuu sheegaya 4420 marka hadaan ضعيفada laba goor ku soo aroorin waa wahmi baan istiin muhaqiq uu ku dhacay halka uu ka dhigay 4 goobo inay teeman maleynaya 4 goobo oo qala ku daciifay Sheekh Albani waxba sharix meena kala du xadiis daciifiyay rasuulku inuu fanax laha xadiiska ku soo arooray xadiis labaadna ku soo arooray xadiiska labaadna daciif labada xadiis waa daciif